Sheekh Cali Warsame oo ka mid ah culimada waaweyn ee gobolka Togdheer ayaa si adag uga hadlay xiisada colaaded ee ka taagan deegaanka Tukaraq ee u dhaxaysa Soomaaliland iyo Puntland ayaa sheegay in nafta qof Islaam ahi ay mudan tahay isla markaana uu dhiig Islaam ah loo daadiyo si fudud. Sheekh ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay maruu maanta ka hadlayay tukashada salaada ciida fidriga ee garoonka kubadda cagta ee Lamse ee magaalada Burco. maamuldan dagaalkan ka socoya meesha la yiraahdo Tukaraq mas'uuliyadda naga saaran culimo haddaanu culimada nahay naga baajin mayso in la yiraahdo maxaa wadaadka siyaasadda iyo badda geliyay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri mathali wa mathalukum wuxuu idinkiyo anigu waxa isaga dhignay dadiyow waxaanu isaga dhiganahay nin dab meel ka shitay oo dabadeedna banaana oo dabeedna bahali oo dhami ku soo aruureen oo isku gurayaan xasharaada koodham balanbaalistii iyo wixii bahale yaryar duulduulayay markay dabka arkaan way isku soo guraan wuxuu yiri meel buu dabka shitay waxaasoo dhan baa ku soo uruuray oo isku guraya dabkii isna wuxuu doonayaa inaan ka baajiyo oo ka celiyo isla doonayaa una taagheli maayo waxaan leedahay wuxuu markaa nebigu yiri war aniguna sidaas oo kale waxaan guntigaan idin hayaa war ka joogaan leedahay idinkuna waa iga buuxsanaysaan idinku cadaabka isku guraya markaa waxaan leedahay dagaalada xuduudadan aad sheegaysaan aad leedihiin waa muqaddas wallaahi qof keliya dhinta oo mu'mina oo lagu dilay wallaahi yaa ka muqaddisan xuduudadan aad sheegaysaan leedihiin waa muqaddas wallaahi qof keliya oo muslina ayaa ka muqaddasan oo ka qiimo badan إلهي سبحانه وتعالى أرضنا إن الأرض لله دولك إلهي بيسكله مسلمين تنبل المكان لها إلهينا وحبأ ما قيبين وحدلوا قيبين يمشروا قالوا وحو قيبين دحق من نقريس هدي قال حولها كقول دحره ميات كو قنعيسا قال بايدين قيبين مياه قال كو وحوي وحبيدين ما قيبين لما قالوا يستيستي هذين ويسدلايي دبيتنا waxay waradna inta qaadana inta asaan qaadanay waxay naga inoo qaybiyeen ma jiro mid walba waxa weeye adna inta qaado dabadeed markii dambana way iska tageen dabadeedna waxay dani qabsatay dadkii dhulka deganaa waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah waa ummad kaliya baa in haadi ummatukum ummatan waahida wa ana rabbukum ummad kaliyatihin rabbigiina wa ana ba ilaahi wuxuu leeyahay aniga weeye marka qofku degaan ilaahi subhanahu wa ta'ala beelbeela kamida ilaahi waa ku abuuri ka dhulka qayb kamida waa ku abuuri kara laakiin ma keenayso abuurista ilaahi beel muayana meel degaana uu ku abuuro ma keeni karto inuu yiraahdo waxa weeyaan cidka kale waan ka leedahay cid kale ma iman karo inuu yiraahdo xaq u yeelan maayo ninku wuxuu xaq u yeelan karaa meesha uu degaanka uu joogo waxa weeyaan intay dawladdu u gooyso intay u jarto leeyahay halka intaas adigu leedahay ama wax ka dhiso ama waxa ka samayso intaas bay dadka kale u kaleeyahay qofka muslimka ah inta kale dhan dadka muslimiinta way u simayeen shawr ma burinayo la sameeyay dunya la sameeyay iyo diinta laga leexday oo lagu dhaqmi waaday ma xalaalaynayso wax muslimiinta ka dhaxeeya oo ay maxaan walaalo ku yihiin qofku meeshuu doono uu ka degi karo waxa weeyaan uma xalaalaynayso ama hal la diido ama yaan la qaadan marka waxaan leedahay hal la joojiyo dagaalada hal la joojiyo shariicada ilaahay lagu joojiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu min daa'ifatan min yuqtatalu fa aslihu baynahuma ilaahay heshiisiyo yiri ilaahay baa idin heshiisiyay oo idin amray inaad heshiisaan laakiin waxaad sugaysaan in gaaladu tiraahdo haystaaya quraanka ku joogsan maysaan kitaabka ilaahay iyo culimadu waxay leedahay midna isku taagay maysaane war gaaladaad sugaysaan inay tiraahdo istaayo ay amar istiyaan marka hooy ilaahay diintiisa u hogaansada culimada maqla shariicada ilaahay qaata ummadaana dhibta ka daaya dadka aad kala xanibteen dadka aad kala xaniso socon kari waaday oo danahoodii isku wada xidhan yihiin ma ka qaada waxa weeyaan waxaan ba ka qaada awlaadan iyo waxaan lagu abuuray ilaahayna waxaan baryayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu muslimiinta tawfiiqda siiyo maamuladana ilaahay subhanahu wa ta'ala
inuu xaqa garansiiyo. waa Cabdirasaaq Koronto telefishinka caalamiga ee SAB magaalada Burco.